wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Cumar shirkaasi wuxuu ahaa shir ka dhacay magaalada Abuja caasimadda dalka Nigeria waxaanu ahaa shir laga hadlayay horumarinta dhaqaalaha ee caalamka waa shir si joogto ah dunida kolba dal loogu qabto waxaana la yiraahdaa World Economic Forum ama shirweynaha horumarinta iyo kobcinta dhaqaalaha ee adduunka sanadkanna waxaa diiradda lagu saarayay qaaradda Afrika horumarka dhaqaalaha ka socda iyo challengeska iyo dhibaatooyinka iyo arrimaha hor yaalla sidii wax looga qaban lahaa Afrika sida laga warqabo waa qaarad imika dhaqaalaheedu si xoog ah runtii u korayo si istaba joogana uu soo kordhay maxaa yeeshe waxaan Afrika wali ku guuleysan in dadka wax haysta iyo kuwa aan haysan dhaqaalu la yareeyo gaabka u dhaxeeya ama la isku soo dhaweeyo waana arrin dawladaha kale horumarayba ay soo mareen bari hore arrintaas xoog dhibaato Afrika ka haysata waxa kale oo ka haysata arrimaha xagga shaqo abuurka dhalinyarada ayaa yara jirta marka arrimahaas xoog la saarayay shirweynahaasi in dhaqaalaha Afrika sidan uu kobciyo oo si kordho isla markaana la yareeyo farqiga u dhaxaysta dadka aan waxba haysan iyo dadka xoolaha la yareeyo iyo shaqo abuurka dhalinyarada oo iyana challenge weyn oo Afrika haysata amuurahaas ugu waaweyn amuurihii runtii laga hadlay dalal fara badan oo ilaa 60 dal ka soo qayb galay madaxweynayaal iyo wasiir ay ku jiraan iyo shirkadaha waaweyn ee dunida ganacsiga nasiib wanaag baan noo ahayd Soomaaliland in aanu aniga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland aanu ka qayb galno waxaana noo suura gashay in kulamo gaar ah la yeelano hogaamiyaashii iyo shiraa'iga waaweyn ee dunida ka socday ee shirka ka soo qayb galay isla markaana aanu soo bandhignay siyaasadda dhaqaalaha iyo maalgashiga dalka si marka loogu soo dabaalo ama loo soo jiito maalqabeeno iyo investors daneynaya in qaaradda Afrika ay maalgashadaan oo dhaqaalihiisa kobciyaan Nigeria waxa markii hore ku horeeyay dalka Imaaraadka Carabta oo aan kula lahaa mas'uuliyiinta dalkaasi iyo maalqabeeno u dhashay dalka Imaaraadka Carabta waxaanu kula yeelanay dhowr kulan magaalada Abu Dhabi oo aanu ka wada hadlaynay wada hadallo hore noogu socday oo xagga ganacsiga iyo maalgashiga iyo dhaqaalaha xiriir la lahaa imikana markii aan Nigeria ka imid waxaan soo maray dalka Ethiopia oo aan iyaguna kala kulmay mas'uuliyiintooda xagga maalgashiga oo qaabilsan Ethiopia dal aynu jaarnahay weeye oo aynu saaxiibanahay iskaashi xagga dhaqaalihiina oo runtii naga dhaxeeyo marka shirkaasina runtii wuxuu ahaa mid uu si riixaya ama soo dhaweynaya heshiiska xagga ganacsiga ee labada dal ee muddo imika ka shaqeynayna diyaar garowgiisa oo aan rajaynayno dhawaan in labada geesood ay kulamo arrintaasi la xiriira ay ka soo anbaqaadi doonaan waxaa jira warshadii Soomaaliland ee sibirku waa berbera sibir waxaa jira Itoobiya inaga yimaada oo la soo saaro gawaari waaweyn oo xoog u miisaan soo wadooyinkii jajabiyay maxaa arrintaa kaaga meediyaan arrin aad iyo aad u muhiim ah weeye runtii dalkeenu wuxuu leeyahay sida laga warqabo khayraad fara badan sibirku wuxuu ka mid yahay resource-ka dalku leeyahay ugu waaweyn nasiib darrana ilaa imika may suuro gelin in ay la dhaqaajiyo arrinta xagga warshada tilmaantay imika samaysa laakiin waxaan socday imika diyaar garow arrinta ku saabsan oo ay ka wada qayb galayaan xukuumadda iyo ganacsadayaasha reer Soomaaliland intaba iyo farsamo yaqaano iyo maalqabeeno shisheeyiintaba marka waxaan rajaynayaa arrintaas in kastoo muddo dheer socotay in dhawaan dalku ku guuleysan doono in warshada loo howlgalo la fuliyo waxna laga qabto si marka arrinta imika aad sheegtay inagoo khayraad kale in sibir dibadda uu Soomaaliland uga yimaado looga maarmi doono dhawaan ayaan rajaynayaa hadii Allah